warnimo yow reer kala maani waxa la yiri madaxdani amaanaysi daa'egta loo yahay siday noogu oofshaana waa la arki doonaaye ilaahi abuurtiya dadkuna waa abaal gudiye hordhac lala akee kama ragyow nagu asqaysiine abshiraysta iimaanka waa lagu adkaystay afwax cunay xisho warhay afwax cunay xisho hore loo yiri war waxaan la yaabay hordhac lala akee kama yiri xagee hordhac uu joogo arrintii waaba gabagabe arooda hangaalka ira kala badan xoogaga wadaniyiinta lagu soo biiriyaan u malaynaa hal isubato hal isfiiriyo war xaaladdu markii halkaan oo kala gaarto hogaama kala xadaa la yidhaaho waxba laysuma qabto horta waxaan arkay xildhibaan fiiqi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guule oo isla sawiraane iyaganoo dhankay naga xigaan ayayaha wareerin ama ra'iisul wasaare ku-xigeenka lala wareegay ama xildhibaan fiiqi ayaa lala wareegay yaa arooma la joogo kawaawa beeray ninba waa kalkiise reer xamarku waxay yidhaahdeen saansaan ku gud saxanna saxan ku gud waxaa kalooy dhihi jireen canjeera say u kala koraysaa loo cunaa waraa ku ciyaarin mahmaahde ooda dhacmeed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraa waxaan idin leeyahay ummaddan sharciga lagu dabakhin dabarran loo yeelin oo aan dastuur dawle iyo diin mid celinaynin dugaaggiyo ileen kama duwana dunyadoo kale waa runtaa horena waxaa loo yidhi owr dabar la'aan dhaxa waxaa cuna dugaagge war waxaa la yidhi jaajuusba jaajuuska kale yuu la jaal yahay shacbigaa la jeebaynayaa meeluu joogaba hornimayaha waxaa la yidhi wixii aad la yaabto waayeel waaya arag iyo waxyaqaanka weydii ibagoo anigu hadda waa yaabay ma yaabe waa rabbigeeye geeddi soomaaliyaheed anigu waxaan la yaaba xilligay kirishtaanka wax ku darsatay nin kasta ood la warranto amba aad la ballanto wuxuu ku leeyahay xilligii fasaxaa la joogaaho yurub aan ka soo naqahaa mar dhow oo ma kirismas dhaygay u socdaan mugga waxaanba u maleeya ummaddan oo dhan kirishadhaygaas aad sheegaysa in laga xukumo war beentaan iska daa cabdullow dadkan kirishboy ma maamuli kare arroy kirishbay howgafin kirishbay kuwa ka liitaa xukumee war ma haysiini dalka waxaa xukumaa waa qurba joog iyo inta xafiisyada fadhisaa sanadkii inuu hal mar fasax leeyihiin oo ilmahan soo booqdaan marka wax kaloo wareera miyaa jira maxaa rabtaan waa runtaa oo horaa waxaa loo yidhi deriskaa kuma madoobeeyo kumana caddeeya sow yahow kaa dhigaa waxaa hore loo yidhi intaan daqar ahayn waa laysku daartaa war dadkaan ka qayb gala kirismasdeyga janwari keliya ay maqnaanayaan febraayo waa joogaan marka iska dulqaata ciddad balansaneedeen markaasaad arkaysiin awel ununkaxay noo haayeen kirishadheeyay ka soo shaqo tageen kirishadheeyaysa hadda u naqdeene war ma haysiine dowladda soomaaliya war culusaa ka soo baxaa la yidhi war makii xiriirka u jartay war jubbaland may aqoonsatay imaaraadka miyay la heshiis masedaniyay u wacday war james iswaan miyay nin garaad u qortay war dad maranaa tihiine bangigii dhexe ayaa wuxuu bangiyada kala amray inay xidhaan akoonnada shirkadaha forakis ee sarifka onlineka war forakis foraganjelamiya war culummaduba waxay dhaheen forakiska la sheegaa dad badan oo lacagii ka furtay sharciga islaamkuna ma qabay dhaheen warnimada waxaan aaminsanahay in kastoo qalad uu jiri karo haddana in xamar uu ka socdo dagaal ganacsi ar culummadu kiristayga lama aadi kara may dheheen war yaa ay haydun cuno ordaha naga tagoo dalkiina u shaqeey war yahay